بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي وأخواني أيها المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو سارة وأم سارة، هذه قصة حقيقية جديدة. أم سارة waxay kashiftay ninkeedu inuu naag misyaara la qabo. Uma Saara iyo Abu Saara waxay isqabeen muddo 25 sano ah. Uma Saara waxay ahayd sawjo tayiba, qof wanaagsan, aad iyo aad u wanaagsan, aan innaba ka gasarin sawjkeeda, wax mashaakilana aan u geysan, khadamaadka uu u baahan yahayna aad iyo aad ugu wanaagsan oo u khadimta. yoom waaxida kuma uusan seexan, waxbay kaa gasartay. kadibna waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida ayay isxirtay Uma Saara jiq. Abu Saara wuu soo galaa, waxay tiraahdaa, waxay u keentaa wuxuu u baahan yahay qaxwada, shaaha, waqti qadada, waqti cashada, laakiin meel bay fadhiisataa, lamaba hadashaba, lama sheekayso, shib bay tiraahdaa. kadibna waxaa dhacday ninkan wuu yaabay, warsee wuxuu jiraan qoftan wuxuu og yahay wanaaggeeda. 25 sano ayuu qabaa. yoom waaxida wax iskuma qabanin, yoom waaxida kama hor imaanin, yoom waaxida wuxuu raalli ka yahay ma ayan samaynin. maalintii dambe habeenkii dambe markuu asbuucii koowaad ay aamusnayd, 10 casho aamusnayd, asbuucii labaad baa soo galay. haddana waxay gaartay xawaali 20 yoom inay sidaa u aamusnaato. maalintii dambe u yeeray, Uma Saara maxaa dhacay? waxay tiri, waxaa dhacay waad i khiyaantay. maxaan kugu khiyaamay? haddaad guursatay maxaad iigu sheegi weyday bay tiri. ooyaan guursaday, goormaanse guursaday. qosol buu la dhacay ninkii, adxak. yaakhay aniga maya, waad guursatay, aniga waa la ii sheegay inaad guursatay. leesh, goormaan guursaday yaakhay? hadalkeedi waabaad igu qoslaysaa, istihzaa baad igu samaynaysaa. leesh baad macnaha aad runta u sheegi weyday, maxaad iigu warrami weyday? haddaad i tiraahdi waa guursanaya, maxaa kugu dhec? wuu la hadlay, cawad min ashaytaan. Uma Saara, dhibaato, aniga dhib kuuma rabo, ma guursan. ii sheeg xaggee dhibka, shaydaankan xaggee inoo ka yib? asmac bay tiri, aniga inta aanan kaa aamusin ka hor, subax shaqadaad u baxday waan seexday bay tiri. markaan seexday ayaan waxaan ku riyooday in aad qabtid naag misyaar ah. yacni misyaarka soomaalidu waxay u taqaanaa waa guurka macnaha aan rasmiga ahayn, way nimanku guursadaan. yacni guur oo nin magaaladiisa ka tego magaalo kale aaday, naagu ka guursaday oo kale. yacni af soomaaliga wixii lagu oran jiray hadda ma xasuusni, balse waa misyaar ayaa carabta lagu yidhaahdaa. waa guurka gaabsiga ah, guur gaabsi weeye, aan rasmi loo guursanin. wuu qoslay oo qoslay. acuudu billaahi min ashaytaan. Uma Saara, shaydaanka iska naar, ma waxaad 20 casho iigu aamustay oo iigu carootay? waa aad guursatay, waxaadna u guursatay, waadna aad ku riyootay. naagtan misyaarka ah waa aad ku riyootay miya? maya, marka aad tegtid oo tiraahda asdiqaagayga ayaan aadaya ayaad naagtaan u tagtaa. marka waan ku soo kashifay. waa uu ka dhaadhicin waaye nahaayadii, ilaa uu xalaf yemiin maray oo uu yidhi xayaatadayda naagaan adiga ahaynba guursan maayo. ma garad? markaas ayay xoogaa farxad dareentay, isbeddeshay. reerkii wuxuu ku soo noqday nabad iyo wanaag. marka waxaan inii sheegayaa ragga Soomaaliyeedu
oo aan anigu ka mid ahay. wax badan oo haweenku iska dhaadhiciyaan ayaa jira. marka bal arrin kasta oo ku qabsada niyahow aad waa inaad ugu dhabo gashaa. maanta intaas ayaan ku soo koobaya qisadii maxaa cusub aan ku soo qaatay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi